Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo hadlayay ayaa waxa uu ku celceliyay muhiimadda Itoobiya ay u leedahay gaarto badda cas. Waxa uu sheegay in riyada Itoobiya ay tahay in bad ay hesho ay rumoobi doonto maanta ama jiilka dambe ay ka dhabayn doonaan gaarsiinta hadafka Itoobiya ee ah in saldhig ay ku yeelato badda cas. Abiy Ahmed waxa uu sheegay in markii is-afgaradka la saxiixday Somaliland lagu cambaareeyay, laakiin maanta dadka is weydiinayaan sababta ficil ahaan ay ugu dhigi la'yihiin is-afgaradka. Abiy waxa uu si adag u difaacay in uu saxnaa is-afgaradka dhinaca badda ee Somaliland uu la gaaray. Dhinaca kale, Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed waxa uu sheegay in uusan jirin degdeg ay ku meel marinayaan is-afgaradka, laakiin ay qaadan karto 10 sano si looga dhabeeyo riyada Itoobiya ee gaarista badda cas. Hadalka Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu muuqanayaa mid quus uu ka taagan yahay in xilligan aysan dhaboobi karin in dowladda dalka Itoobiya ay hesho qayb ka mid ah badda cas. Haddiiba Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya uu sheegay in 10 sano ee soo socda mar uun bad ay gaari doonaan, waxay u muuqanaysaa in rajadii dowladda dalka Itoobiya ay ka lahayd inuu dhaqangalo is-afgaradka Somaliland ay la gashay uu dhaboobi doono. Tani waxay noqonaysaa in cadaadiskii uu kala kulmay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed beesha caalamka ay gadaal u dhigtay rajadii ahayd in bad uun mar ay helaan, isla markaana Itoobiya ay noqoto wadamada iyadu badda leh. Waxaa la filayay in dhammaadka sanadkan Somaliland iyo sidoo kale dowladda dalka Itoobiya ay si rasmi ah u meel mariyaan, isla markaana heshiiskaas ay ka dhigaan mid dhaqan gala. Somaliland oo maalmo ka hor hadashay waxay sheegtay in maalmaha soo aadan heshiiskii is-afgaradka ahaa loo bedeli doono heshiis run ah oo dhaqan gala, balse hadalka Muuse Biixi waxaa durba buriyay Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo ka dhigay waxba kama jiraan. Somaliland iyadu waxay ku tahmaysay muddo in ay hesho aqoonsi, taana waxay ku bedelatay in dowladda dalka Itoobiya ay la saxiixato heshiis beenaad. Balse Somaliland waxay noqonaysaa markan iyaduna in ay ka niyad jabto heshiiskii ay la gashay dowladda dalka Itoobiya, maadaama dhaqangalkiisa Ra'iisul Wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed uu sheegay inay qaadan karto 10 sano ee soo aadan. Waana hadal dhibaato iyo sidoo kale dhabarjab ku ah marka la eego Somaliland iyo sidoo kale dowladda dalka Itoobiya oo labaduba damac uga jiray in wax isdhaafsi ay sameeyaan. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa iyadu muddooyinkii dambe waxay xoogga saaraysay sidii guud ahaanba Abiy Ahmed uu kaga noqon lahaa heshiiskii is-afgaradka ah ee uu la saxiixday Somaliland, waxaana dowladda Xasan Sheikh uu hogaaminayo ay xoogga saartay in dhammaadka sanadkan ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan gudaha Soomaaliya laga saaro. Waana sababta sii xoojinaysa ayaa la leeyahay cadaadiska Abiy Ahmed xilligan dhinacyada kala duwan kaga imaanaya. Abiy haddii uu ka laabto heshiiskii is-afgaradka ee uu la galay Somaliland, dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay in iyadu ay ogolaanayso in ciidamadeeda qayb ay kasii noqdaan nabad ilaalinta. Ciidamada u jooga Soomaaliya ee 2025 magacooda loo bedeli doono EUSOM, magaca hadda ay ku shaqeeyaanna waxa uu yahay ADMIS. Itoobiya faa'iidooyin badan oo dhinaca dhaqaalaha ayaa ka soo gala ciidamadooda ku sugan gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ku adkaanaysa in ciidamadaasi ay ka saaraan. Bedelkeeda, Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu fudud inuu ka noqdo heshiiskii is-afgaradka ee uu la galay maamulka Somaliland. 2 bilood wax ka yar ayaa ka dhiman dhammaadka waqtigii Itoobiya ay ku sii jiri lahayd gudaha Soomaaliya, iyadoo hadda qaybo badan oo dalka iyadu ay ku sugan tahay sida gobolada Bay, Bakool, Gado, Hiiraan iyo sidoo kale gobolka Galgaduud. Waana 5 gobol oo muhiim ah marka la eego oo dhinaca xuduudda saaran. Cadaadiska dhinacyada badan ee kaga imaanaya Abiy Ahmed beesha caalamka, Midowga Afrika iyo sidoo kale dowladaha Eritrea, Masar iyo Soomaaliya ayaa waxay ku qasbaysaa in sida ugu dhaqsiyaha badan intaan la gaarin dhammaadka sanadkan uu ka laabto heshiis beenaadkii uu la galay maamulka Somaliland. Haddaba adiga daawada siday kula tahay, Abiy Ahmed ma wax uu dooran doonaa in ciidamadiisa uu kala baxo gudaha Soomaaliya, mase heshiiskii uu la galay Somaliland ayuu ka laaban doonaa? Aragtidaada barta hoose inoogu reeb.